نور يا أمير أنت كيمات أنت كيمات. السلام عليكم أصحابتيدا soo dhawaada meel kastoo adduunka ka joogtaan muuqaalkan yarkaa maanta idinla jeclaaday inaa wax idinka tuso ardayda dugsiga dhigato ee xaafadeena maasha allah waxaana ujeediin waa arday laga soo daayay dugsi hadda waa barqadii may waa salaada duhurka waxaa laga soo daayay fardambad ciyaal dugsiley asal way yaqaanaan maasha allah waxaa loo soo daayay qado loo soo daayay marka maasha allah waxay haystaan break dheer haystaan waxay ku laabanayaan labadii barki ilaa saddexdii ku noqon doonaan insha allah meeshaan waxaa ujeediin dhan waa ciyaal oo arday kor waa idinka tusi doonaa hadda wuu u dhowahay gabdho yar oo aan ag taaganaha idinku tusay muuqaalkaas markaan waa kuwaasaa waxa ani isoo jiitay oo jeclaada waxay tahay maasha allah tabaarakallah dharka caruurta ay wataan iyo sida maasha allah ciyaalka dhan ee dugsiley u yihiin oo quraanka yacni dhankiisa ilmaha loogu jiheeyay iyo cilmiga islaamka in la baro diinta dhan yacni waxyaabaheeda kala duwan maasha allah quraanka ugu horeeyo tafsiirka way bartaan xaafadan maasha allah waxyaabaha aan ku jeclaadaa waxa kamid dugsiyada meel kasta dugsi waaye hadda wadadan horey ila socdo laba dugsiyo waaweyn ku taalo oo mid dabaq yahabo dhinacan kaleente oo hadda kaamirada la aadi doono ayagana waxa ku taalo ilaa 3 dugsi ku yaalo iyo iskuul weyn maasha allah muuqaalkan wuxuu aad yacni u anfacayaa hooyooyinka jiro qurbaha jiro inay arkaan wax ka maqan caruurtooda imagine cunugaaga yacni markuu bulshadan kuugu dhex jiro la dheheenin madoobaay tahay faqiiraa tahay taajiraa tahay qaxootiyaad yacni waxaas dhan aan la dheheenin oo cunugaaga yacni cunsuriyad iyo faquuq ku jirin ku darso uu cunugaaga kuu dhiganayo diintaada kuu baranayo bay'adaada kuugu dhex jiro arag gabdhahan yararka sidai u xijaaban yihiin meeshaan waxa aad uga helaysaa waxaa kamid ardayda si asturan tahay maasha allah wiilasha wada qamiis ay wataan ma jiro cunug dugsi dhigto oo qamiis wadanin iyo yacni sunnada islaamka koofiya yarkay wataan qamiisya wataan badankooda waa ujeediin bindhiina idin macalina iyo maasha allah gabdhaha waxay wataan xijaab iyo saakay wataan oo maasha allah oo yacni jirkooda dhan khab u ogaawne caruurtan waxaa laga soo aruuriyay dibadaha laga keenay ciyaalkan maaha ciyaal oo Soomaaliya in lagama keenin badankooda waxaa laga keenay qurbaha way jiraan qaar Soomaaliya laga keenay maasha allah laakiin ilmahan waxyaabaha cajiibka la ku arkay sida waxay tahay xijaabka gabdhaha xijaabka way jeclaanayaan hadda maalinteed waxa la iga sheekeynayay in gabar yar oo reer Sweden dhalasho yar loo sameeyay hooyada tir gabadha dhalasho la igu sameeyo kabacdina xijaabkeedu weena gabiska soo siisay markaas xafladda imaatay maasha allah way diiday in xijaabka laga siibo oo saaka yar qurxoon loo geliyo maadaama ay xaflad lahayd kuwan waa ciyaalkayga uniformkan ay haystaan gabadheeda waatana maasha allah 6 sano jirtaa sidaan waa ilmaha astuuriyin ayada tusaalada kugu soo qaatay wiilkayga waa kana maasha allah ayub saan waa asagana qamiiskaas wataa xaafadan dadinta qamiis leh wadanee maasha allah waa kana had salaad loo adimoya wax masaajidku aruuray dhan waa ciyaal yar arka ila daawada maasha allah wallahi waalidkii nasiib leh halkan ku nool ilmahooda ku korsanayo kuwa iska jooga ee aaminsan maxaa yaal Afrika hadii ilmaha la wado waxbarashada ka kala daadanayso no ilmaha waxa ka dhiman noloshooda waa intaan insha allah intay awoodaada tahay soo kaxaysa caruurtaada muuqaalka taa ka heshayna please like iyo share subscribe dhankiina waaye